Shalay ayay ahayd markii xilka ay ka qaadeen guddoomiyenimo baarlamaanka Puntland guddoomiyihii baarlamaanka Cabdixakiin Dooba Dareed iyo weliba sidoo kale madaxweynaha ismaamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani khilaaf soo kala dhexgalay ayaa waxa uu bilaabay gardarro iyo daandaansi aan geed loogu soo gaban islamarkaana xilka looga xayuubiyey si sharci darro ah guddoomiyaha baarlamaanka kusoo baxay guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Dooba Dareed oo ku yimi cod baarlamaan habeen hore magaalada Garowe ayaa waxaa ka dhacday rasaaseyn dhex martay ciidamo la sheegay inay taabacsanaayeen Siciid Cabdulaahi Dani uuna dabada Dani ka riixayay iyo sidoo kale weliba ciidamada ilaalada xarunta baarlamaanka Puntland oo waqtiga uu ku sugnaa guddoomiyaha baarlamaanka ciidamo ka amar qaata khilaafka la saddex geesoodka ay u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa sii xoogeysanaya marka ka dambaysa mudaharaadyo horle ayaa ka bilowday deegaanada uu ka soo jeedo dhalash ahaan guddoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Dooba Dareed deegaanada Cerdaahir Baran Dhahar iyo deegaanada bariga gobolka Sanaag ku teersan ayaa guud ahaanba waxaa ka bilowday mudaharaadyo xoog leh oo looga soo horjeedo habka sharci darrada ee xilka looga xayuubiyey guddoomiyaha baarlamaanka dhawaanba deegaanada bariga gobolka Sanaag ee uu ka soo jeedo dhalash ahaan Cabdixakiin Dooba Dareed ayaa waxaa ka socday dadaalo lagaga xayuubinayo maamulka Somaliland joogitaankooda iyo ka mid ahaanshahooda iyadoona boqolaal ciidamo iyo guutooyin hubeysan oo ku hubeysan hubabka noocyadooda kala duwan oo iskugu jira saraakiil ku-xigeen dable iyo weliba ciidamada ku labisan tiknikada iyo gaadiidka kala duwan ayaa ka soo goosanayay Somaliland kuna soo biirayay ismaamulka waqtigan khilaafku ragaadiyay ee Puntland sidoo kale qurba joogta iyo weliba qolqol joogta kala duwan ee ku sugan wadanada Afrika caalamka intiisa kale iyo gobolada Soomaalida ee fogfog ayaa waxaa ka socda shirar iyo sidoo kale weliba kulano kala duwan oo looga soo horjeedo arrintaasi Cabdixakiin Dooba Dareed ayaa sheegay inuuna ku qanacsanayn sifada sharci darrada ee looga qaaday xilka wararka ayaa sheegaya ciidamo taabacsan Dooba Dareed Cabdixakiin Dooba Dareed guddoomiyaha baarlamaanka inay waqtigan ay deegaanada qaybo ka mid ah rabaan inay ka geystaan howlgallo ay kaga jawaabayaan arrinta uu ku kacay Siciid Cabdulaahi Dani Puntland ayaa wajahaysa caqabado ay ka mid yihiin khilaafaad qalalaaso lahaansho iyo weliba sambursi ku salaysan qabyaalad iyo sidoo kale weliba go'aan xumo lama oga meel ay ku damayn doonaan